لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkan waxaan kasoo gudbinaynaa casharkii 241 ee tafsiirka quraanka kariimka casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 15 ee suuratu an-naml waxaan casharkeenii hore uga soo sheekaynay qisadii nabiyullaahi Muusa calayhi salaam iyo Fircawn dhexmartay oo kooban casharkeenan dhammaantiis waxaan kaga hadli doonaa qisadii nabiyullaahi Daawud iyo wiilkiisa Nabi Sulaymaan gaar ahaan waxaa lagu faahfaahin doonaa qisadii Nabi Sulaymaan calayhi salaam ilaa casharka kale qayb ka gali doontaa laga yaabaa ilaahay wuxuu leeyahay walaqad aataynaa waan siinay Daawuda Nabi Daawud iyo wa Sulaymaana Nabi Sulaymaan waxaan siinay cilman aqoon ayaan siinay iyo cilmi oo ay dadkii kala xukmiyaan jinnigii ay fahmaan dabaylihii ay fahmaan shimbirihii hadalkoodii ay fahmaan iyo waxyi iyo nubuwo ayaan siinaa alla leeyahay cilmigaasaan siinay labadaas nabi waqaalaa waxayna yiraahdeen Nabi Daawud iyo Nabi Sulaymaan oo wiilkiisihi alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iska leh alladii allahaasoo fadalanaa na sara mariyey oo nebinimadka iyo cilmiga nagu sara mariyey calaa kathiirin wax fara badan kuwa badan naga sara mariyo min cibaadihi alla addoomihiisa ka mid ah addoomihii almu'miniina mu'miniinta ahaa mu'miniinta qaybo badan oo ka mid ah allaha naga sara mariyey allahaasaan ku mahadinaynaa wuxuu nagu fadilay nebinimad wuxuu nagu fadilay jinnigii iyo dabayshii iyo shimbirihii iyo wixii oo dhan in noo sakhiray iyo shayaadiintii marka khalqi badan aan ka sarreynaa waxay u leeyihiin khalqi badan aan ka sarreynaa hadda qaybaysa ka sarreynaa jiro ambiyadii ilaahay oo kale ah marka allahaasna fadilay ayaan ku mahadinaynaa qofka muuminkaana haddii ilaahay nicmo uu siiyo waxaa la rabaa nicmada shukrigeeda inuu guto maxaa yeelay shukrigu nicmadii horena wuu kuu xajinayaa midda dambana waa lagugu kordhinayaa wawaritha waa uu dhaxlay Sulaymaanu Nabi Sulaymaan Daawuda Nabi Daawud uu dhaxlay Nabi Daawud wiilal badan uu dhalay laakiin ilaahay hadda wuxuu sheegay Nabi Sulaymaan maxaa yeelay dhaxalkan laga hadlayaa ma ahan dhaxalkii xoolaha kaas wiilasha dhan waa wada leeyihiin iyo ilmihiisu hadda dhaxalka laga hadlayaa waxa weeye waa dhaxalka nubuwada iyo boqortooyadii nabinimadkii iyo boqortooyadii waxaa dhaxlay Nabi Sulaymaan aabihiis Nabi Daawud ka dhaxlay wawaritha Sulaymaanu Nabi Sulaymaan wuxuu dhaxlay Daawuda Nabi Daawud waqaala wuxuuna yiri Nabi Sulaymaan asagoo ka sheekaynaya nicmadaas la siiyay yaa ayuhan naasu waray dadkaanow cullimna waa nala baray aniga iyo aabahayba waxaa nala baray mantiqa tayri shimbiraha hadalkooda iyo fahankooda iyo socodkooda yacni shimbirahoo dhana xaaladahooda wax ka ognahay uu leeyahay hadalka shimbiraha nala baray wa uutiina waana nala siiyey min kulli shayin shay kasta xaggiisa ayaa nala ka siiyey wax kasta oo nabi u baahan yahay iyo boqortooyo u baahan tahay ayaa nala siiyuu yiri ilaahay fadligiisa weeye wixii ambiyada iyo boqorrada la siiyo intaba waa nala siiyuu yiri nabiyullaahi Sulaymaan calayhi salaam inna hada kani oo nala siiyey wax badan oo u baahannahay iyo hadalkan oo nala baray lahuwa asagu alfadlu waa fadli iyo dheeraad almubiinu cado ilaahay weynaayo waaxidka ahaa ayaa nagu tafadulay oo nagu manaystay oo maaragtay waa fadli iska muuqdo alla uu nasiyuu leeyahay wuxushira waa loo soo kulmiyey lisulaymaana Nabi Sulaymaan waxaa loo soo aruuriyo la iskugu keenay junuuduhu ciidamadiisii ayaa loo soo kulmiyey Nabi Sulaymaan oo min aljinni jinnigiya iyo wal insi bini aadamkiya iyo watayri shimbirihiya Nabi Sulaymaan waxaa loo soo aruuriyey ciidamadiisii asagoo socod gali raba markii ciidamadiisa jinniya ku jiray waxaa ciidamadiisa ku jiray shimbiro
waxaa ciidamadiisa ku jiray bini aadam marka wixii oo dhan alla isku keenay intaasoo kumanaan kun oo military fahum ayagu ciidamadaasi yuzacuuna kuwa la horaya weeye ama la isu celinayo oo waxa weeye bilowgoodaas hore markay baxaanba waa la celinayaa si kuwii dambe ay uga daba yimaadaan dhanka kalena si aysan u kala hormarin oo u kala dheeraan ayaa la isku celinayaa waa la aruurinayaa waa la isku kulminayaa hadda markaasaa la socodsiinayaa inay kala hormaraan looma ogola yuzacuuna waa la horayaahoo la hakinayaa la celinaya nabi sulaymaan marka waa uu socday ciidankiisa isagoo wata xataa idaa aatow markii ay yimaadeen nebi muuse iyo ciidankiisii calaa waadi namli quraanyo ama dhowracaso waxaa tidhahda dhehe waadigeed ama toggeed markii ay yimaadeen quraanyo toggeed markii ay yimaadeen daa'if waa la yidhaahdaa sham waa la yidhaahdaa waxa weeye meeshii markay yimaadeen toggaas qaalat namlatun markii ciidankan faraha badan ay arkeen quraanyooyinkii oo faraha badan oo socda ayaa quraanyadii ay dareentay quraanyooyinkii mid ka mida ayaa quraanyadii kale u degaysa xataa idaa atow markay yimaadeen nebi sulaymaan iyo ciidankiisii calaa waadi namli quraanyadii toggeedii markay yimaadeen ayay qaala tiri namlatun quraanyo yaa ayuhaa hooy an namlu quraanyooyinkaanow warey quraanyooyinkaanow udkhuluu gala masaakinakum guryihiina gala maxaa dhacay laa yaxtimanakum yuusan idin burburin oo idin jejebin sulaymaanu nabi sulaymaan yaysa idin jejebin iyo wa junuuduhu ciidamadiisu wahum ayagoo laa yashcuruun aan ogeyn baashan quraanyada markii ay aragtay ciidamadan faraha badan oo waddadii soo haya ayay la hadashay quraanyooyinkii kale markaase waxay tiri war gala guryihiina gala amar ayay siiday amarkaas marka ay siido ay u sheegtay guryihii inay galaan sababta ay u galayaanna waxay tiri ciidamadaas nebi sulaymaan iyo ciidankiisa inay idinku istaagaan oo idin burburiyaan ayaa dhici karta marka hadda nebi sulaymaan iyo ciidankiisu ma iskaga xadgudbayaan khalqiga ilaahay maya waxay tiri waa u cududaarto waxay tiri wahum laa yashcuruun ayagoona dareemayno maadaama khalqi yaryar aad tihiin adinku aysana idin jeedin inay idinku tuntaan oo cagta idin saaraan ayagaa dhici karta ayagoona idin dareemayn marka ka xarooda ayay tiri udkhuluu masaakinakum guryihiina gala laa yaxtimanakum yuusan idin burburin sulaymaanu nabi sulaymaan iyo wajunuuduhu ciidamadiisu wahum ayagoo laa yashcuruuna aan dareemayn ee haddii nebi sulaymaan uu idin arko si ula kaca idinkula istaagi maayo markaas oo sidaas ay baashi quraanyadaa tiri fatabasama wuu dhoolla caddeeyey nebi sulaymaan daaxikan asagoo qoslaya min qowlihaa hadalkeeda dartiis la qoslaya nabiyullaahi sulaymaan hadalkeediiuu maqlay uuna fahmay markaas ayuu dhoolla caddeeyaa la yidhi allahu akbar marka hadda quraanyo hadalkeed baba maqalnaba fahamka ka hor asaga laakiin ilaahayba u sakhiro wuxuu soo yiri ilaahay cilmiyuuna siiyey uu soo yiri cilmi ayuuna siiyey marka khalqigaasuu ilaahay u sakhiray waa uu fahmay meel ka fogu ka fahmay markaasuu sida ay ula talisay ayuu ku qosla nebi sulaymaan fatabasama nebi sulaymaan waa dhoolla caddeeyay daaxikan asagoo qoslaya min qowlihaa hadalkeedii u dhoolla caddeeyo ambiyada ilaahay hadda qosol gahgaha iyo ma aysa qosli jirinoo akhlaaq xumo muujinaye dhoolla caddayn waa ayay qoslayeen marka nebi sulaymaan nicmadaasuu ilaahay uga shukrinayaahoo waxa weeye hadda ilaahay baa fahansiiyey oo cilmigaas siiyey wa qaala wuxuuna yidhi nebi sulaymaan rabbi ilaahow awsicnii ilhaami an ashkura inaan kugu shukriyo ilaahow igu ilhaami nicmataka nicmadaada inaan ku shukriyo an ashkura inaan ku shukriyo ku mahad celiyo nicmataka nicmada isiiday oo ay ka mid tahay cilmigan iyo nebinimadkan iyo fahamkan shimbirihii iyo quraanyooyinkii aan fahmayo ilaahow inaan kaaga shukriyo igu ilhaami allatii nicmadaasoo ancamta aada aniga igu nicmaysay inaan kaaga mahad celiyo ilaahow igu ilhaami ancamta aada nicmaysay calaya aniga korkayga ancamta aada nicmaysay calaya aniga korkayga aada igu nicmaysay wa calaa waalidaya labadayda waalidna aada ugu nicmaysay oo aabbahay oo nebi daawuud ahaa iyo hooyaday nicmada aada siiday inaan kaaga shukriyo ilaahow igu ilhaamiyu yidhi
adiga karsii kare qofke ilaahu ikarsii nicmo weynaad ii gashay waxaa kaloo ilaahay wa an acmala inaan sameeyo saalixan camal wanaagsan inaan sameeyana ilaahu igu ilhaami camalkaa saalixa ahoo tardaahu aad raalli ka tahay camal adigu kii aad raalli ka aheed ah in aan aan sameeyo oo ku dhaqmo oo practice gareeyana ilaahu igu ilhaami waadkhilnii ilaahu igeli biraxmatika adiga naxariistaada darteed waxaad igu gelisaa fii cibaadika addoommahaaga dhexdooda alsaalixiina wan wanaagsan oo ambiyadii igu daruu leeyahay asagoo hadda addoommihii saalixiintaa ka mid a ayuu ilaahay haddana usii tawaaducaya oo baryayaahoo saalixiintaada ambiyadii iyo awliyadii iyo dadkaasa suuban ilaahu igu daruu leeyahay ducadaasaa nabi sulaymaan calayhi salaam uu ku ducaystay waa duco muhiima qof kastoo muumina inuu ku ducaysta rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waaliday wa an acmala saalixan tardaah waadkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin qof kastoo muumina inuu ku ducaysta weeye watafaqada wuxuu baarbaaray nebi sulaymaan adayra shimbirihii ayuu baarbaaray faqaala wuxuu yihi nebi sulaymaan maalii maxaa aniga lahantayda maxaa igu dhaco laa araa aana u arkayn alhudhuda shimbirkii la dhihi jiray hudhudka maxaa u arki waaye shimbirkan waxaa la yihi wuxuu ahaa shimbir indha badan oo meelaha biyuhu ku jiraan iyo arka marka maalin maalmaha ka mid a ayaa nebi sulaymaan u baahday meel meeshii biyaha laga heli lahaa si shimbirka uu u arko markaasuu waaya la yihi hudhudkii marka maali maxaa igu dhaco laa araa aana u arkayn alhudhuda shimbirka hudhudkaha ma arkuu yihi maxaa dhacay am kaana ma wuxuu ahaaday hudhudkii min alghaa'ibiina kuwa maqan maxaan la arki laahay ma aniga indhahayga wax ka sii yihiin mase waaba uu maqan yahay waa uu maqan yahay kuwa maqanuu ku jiraa waa yahay la ucadibannahu waan cadaabayaa hudhudka cadaaban ciqaab shadiidan daran ciqaab daranaan saari doonaa aw amase la adbaxannahu waan gawrici doonaa aw laya'tiyannii wuu iila imaan doonaa bisultaanin xujo mubiinin cad hudhudkii ma arkuu yihi hadda waa maqan yahay koleyta saddex maada midkoodu la kulmi doonaa in aan ciqaab adag geliyo ciqaabkaas tafaasiir kala badanaa culammadu ka bixiyaan waxaa ka mid a baalasha in laga rifo oo aan sidaas ku ciqaabo ganaaxaas uu la kulmo waa yahay ama haddii kale inaan bireeyo isaga dhanba ama maahane daliil cad inuu keeno sababta uu ku maqnaa inuu keeno waqti dagaal iyo socda lagu jiraa waxa uu la maqan yahay waa inuu keenaa haddii kale ganaaxa uu ku dhici kara ganaaxa ku dhici kara waa yahay ganaaxa ku dhacaya haddii kale saddexdaas maadaamida laga rabaa ciqaab adagu la kulmo iyo gawracu la kulmo ama in uu daliil keeno wixi uu ku maqnaa sabab inuu keeno famakatha nebi sulaymaan waa macnaha hudhudkiyaa nagaaday famakatha hudhudkii waa nagaaday ama famakutha labada waa la akriyaa laba qiree hudhudkii waa nagaaday hayra baciidin waqti fog qayrkiis yani isagoon fogeyn yani zamanan yasiiran uu nagaado wey hayra baciidin isagoon fogeyn yani wax yar uu nagaado wax yar uu maqnaa wax yar ayuu maqnaa famakatha waa uu nagaado wuu maqnaayo meeshuu joogu ku nagaaday yani maqnaashihii ku nagaaday hayra baciidin mid fog isagoon ahayno yani wax yar kabacdi yimid sidii wax meel fog aan jirin waa yahay faqaala wuxuu yihi cududaaru la imaanayaa ilaa aw laya'tiyannii bisultaanin mubiin sooma ahayn faqaala wuxuu yihi hudhudkii axadtu waxaan koobay oo ogaaday bimaa shay lam tuxid aadan koobin oo aadan ogaanin bihi kaas cilmi iyo war aad ahayn ayaan hayaa uu yihi cududaar daliilu keena marka waxaan soo daalacday oo soo ogaaday war adigu aad ahayn nebi sulaymaanow waji'tuka waxaana kuula imid nebi sulaymaanow min saba-in magaaladii saba la dhihi jiray ama min saba-a saba meesha la yidhahdo waa isku mid waa laba qiree waxaan kaagala imid binaba-in war yaqiinin la hubo information saxa ayaan kaaga keenu yihi warbixin saxa aan kaaga hayaa huu yihi
saba meesha la yidhaahdo oo yaman ku taala ayaan waxaan kaaga hayaa war la hubo binaba-in ayaan kula imid ji'tuka min saba-in saba waxaan kaagala imid binaba-in war yaqiinin ee hubaal ah war la hubaan kuu wada muxuu yahay warkaasi wuxuu leeyahay waa kan warkii uu ka sheekeynaya nebi sulayman marka xujacadu markaan hudhudka haystaaho hadda waruuba keenaba wuxuu yidhi inii anigu wajadtu waxaan helay oo la kulmay imra'atan haweeney taasoo tamlikuhum dadka reesaba boqorad u ah tamlikuhum madax u ahoo milkinayso yacni boqorad u ah reesabo haweeney boqorad u ah ayaan la kulmay wa uutiyat haweeneydaasna waa la siiyey min kulli shay-in wax kasta xaggooda wax laga siiyo wax kasta oo boqoradu u baahan yihiin ee qalab iyo saanad military iyo ciidan wax kasta oo boqoradu u baahan yihiin waa la siiyey iyo hanti intaba wa uutiyat min kulli shayin shay kastana xaggiisa waxbaa laga siiyey oo boqoradu ay u baahan yihiin walahaa waxayna leedahay boqoradaasi carshun sariir cadiimun weyn sariir weyn oo aada iyo aad bahal u sareysa ah ee boqorada loogu talagala ayayna haysataa cilada laakiin haysata waxa weeye wajadtuhaa haweeneydii waan helay oo la kulmay iyo wa qawmahaa dadkeediiba iyadii dadkeediiba waan la kulmay yasjuduuna ayagoo sujuudaya lishamsi qoraxda u sujuudaya min duuni illaahi ilaahay ka sokay waxaa dhibka haysta wuxuu ahaa hantidaas iyo nafcigaas iyo dunyadaas ay haystaan iyo boqortooyadaas qaaliga ahi dheef ma leh marba haddii ilaahay keyrkiis la caabudayo marka wuxuu yidhi shimbirkii cilada haysata waxay ahaayeen dadkaasi dad ilaahay keyrkiis u sujuudaya ayay ahaayeenoo qoraxdii ayay u sujuudayeen min duuni illaahi adiguna nebigii ilaahayaa tahay inaad markaa dadkaas shaqo ka qabatid ayaa loo baahan yahay wazayana waxaana u qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii kufrigii iyo sujuuddii qoraxda ay u sujuudayeen ayaa shaydaanku inta u qurxiyey ayay waxay u arkeen inay ku saxan yihiin qoraxda inay sujuudaan fasada shaydaanki wuu reeba hum ayaga can isabiili wadadii xaqa ahayd ee islaamnimadka ahayd ayuu ka hor istaagay maxaa yeele wuxuu u tusiyey inayba ku saxan yihiin ayagu oo fahum ayagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan oo wadada xaqa ah kuma ay hanuunayaan sababtoo midda ay ku sugan yihiin ayayba xaq u arkaanoo shaydaan uu qurxiyey uu leeyahay anlaa yasjuduu inaysan u sujuudin waxaa lagu kala xiri karaa yani anlaa yasjuduu an yasjuduu inay u sujuudaan ay kuma hanuunayaan fahum laa yahtaduuna ma hanuunayaano anlaa yasjuduu an yasjuduu inay u sujuudaan kuma hanuunayaan lilaahi ilaahay ay u sujuudaan alladii allahaasoo yukhriju soo saara alkhaba waxa kaydsan fi samaawaati samaawaadka ku kaydsan iyo walardi dhulka anlaa yasjuduu an yasjuduu inay u sujuudaan kuma hanuunayaan lilaahi ilaahay ay u sujuudaan alladii allahaasoo yukhriju soo bixinaya amaana anlaa yasjuduu inaysan u sujuudin ayuu wadada khayrkaa uga hor istaagay shaydaan lilaahi ilaahay aysan u sujuudin alladii allahaasoo yukhriju soo saara alkhaba waa yahay taasna waa la yidhaahdaa waa yahay lilaahi allah aysan u sujuudin alladii allahaasoo yukhriju soo saara alkhaba waxa kaydka ah oo ku qarsoon waa yahay fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku qarsoon iyo wal ardi dhulka ku qarsoon allaha kaydkaas wax allaala wixii dhulka iyo cirka ku dhex jira soo saara allahaas inay u sujuudaan kuma hanuunayaan an yasjuduu lilah aysan ku hanuunayan shaydaanka ka hor istaagay wayaclamu oo og alle maa tukfuuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxa aad muujinaysaan labadaba ama maa yukfuuna wamaa yuclinuun labadaba qirada kale weeye waxa ay qarsanayaan iyo waxay muujinayaanba allaha og allahaas uma sujuudayaan allahaasaysa u sujuudin marka saasaa ay u baadiyeysan yihiin waxaa la rabay inay u sujuudaan allaha samaawaadka iyo dhulka waxa ku kaydsan oo ku qarsoon og allaha quluubtooda waxa ku jira iyo waxay muujisanayaan og
marka laakiin taas kuma hanuunin wayaclamu og maa tukfuuna waxaa qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaa muujinaysaan. allahu alla weeye, allahaas la sheegayaa waa alle, laa ilaaha ilaah kale ma jiro ilaa hu asaga maahane, rabulcarshi carshiga weyn ee wax kasta u weyn asaga iska leh, carshigaas allah iskale weeye, carshigii alcadiimi ee weynaa. intaas ayaa hudhudkii warkii u wada uu noqday. hudhudkii sidaas ayuu ugu sheekeeyey. markii hudhudkii warkiisii saas uu ku dhameeyey ayaa nebi sulaymaan jawaabaya marka. qaala nebi sulaymaan wuxuu yihi sananduru waan eegi doonaa oo fiiri doonaa asadaqta inaad run sheegtay waxa aad noo sheegtay inaad ku run sheegtay am kunta amase inaad tahay min alkaadibiina beenaalayaasha oo cududaar beena inaad la timid si aad u badbaadid oo cadaabkii iyo gawraca uga badbaadid. inaad been noo sheegtay iyo inaad run sheegayd labadaba waan kala saaraynaa, waa kala ogaaneynaa. waa yahay waa tan marka idhab taguu yihi bikitaabi, aniga qoraalkayga la tag hada kan ah, qoraalkan iyo risaaladan iga qaad. qoraal kitaabu u qoray, waxa soo socdana ay ku qoran yihiin. markaasuu yihi kitaabkan qaad, fa alqi ridhi kitaabkan ilayhim ayaga u rido, gabadhaas boqorada ah iyo ciidankeeda u gee. fa alqi ridhi kitaabka ilayhim ayaga u gee. uma markaa kitaabka usoo ridid tawalla ka jeeso canhum xaggooda ka jeeso, yacni ka durug meel ka fog tag. ka durug oo meel ka fog tag. fandur fiiriyo eeg maadaa yarjicuun waxa ay soo celinayaan oo ay ku jawaabayaan. maa yaruduuna min aljawaaba laga wada maadaa yarjicuun waxa ay soo celinayaan oo jawaabta ah waxa weeye fiiri. marka hudhudkii wuxuu soo qaaday warqadii suu ila soo ordayo boqoradii oo fadhisa inta dul haadu dho korkeeda ku siiyaa la yidhi. markii kitaabkii uu ku korsiiyey furtay qoraalkii way aragtay qoraalkan cajiibka ah oo lasoo diyaariyey quruxda badan. waa tan marka hudhudkuna waa tababaran yaho meel fog ma tegine, hadda waa shimbir oo cidna maba danaynayso, meel dhow meel xoogaa ka qarsoon ayuu istaagay si uu warkooda ogaado. qaalad waxay tiri gabadhii balqiise aheed oo madaxda ahayd, gabadhii balqiisada qisadaani waxay tiri yaa ayuha lmala-u, war raggiinaan madaxda ahayow, raggii la taliyaasheedii iyo wasiiradeedii iyo madaxyaweyntii ku-xigeenadeeda ahayd ay la tashanaysaa. yaa ayuha hoy almala-u jamacaanow, raggiinaan indhaha buuxinayow, inii aniga ulqiya waa la soo riday ilaya aniga waxaa la iisoo riday kitaabun qoraal iyo risaalo kariimun wanaagsanoo shaabadaysan. kitaab cajiibahoo shaabadaysan ayaa la iisoo riday. dho-a kor la iiga soo siiyaba, risaaladaas ay soo gaartay. hawsha waa culusta. inii aniga ulqiya waxaa la iisoo riday ilaya aniga kitaabun qoraal kariimun wanaagsan oo macnaha shaabadaysan, fasiro kalena oo lagu fasiraa. maxaa kitaabkaasi uu yahay? inahu kitaabkaani waa qoraalkii min sulaymaana nebi sulaymaanu ka ahaaday. ko wa inahu kitaabkan waxa ku dhex jiraahina bismi illaahi araxmaani araxiim wey. bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabay, alli arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayay, alli arraxiim naxariis gaarka ku naxariisanayay. iyo hadalkaya weli sii socdo waxa kitaab ku dhex jira waxa weeye anlaa tacluu ha kibrinina oo ha isla weynaanina calaya aniga korkayga, ha iskala weynaanina oo warkayga ha diidinina. wa'tuunii ii imaada muslimiina adinkoo muslimiinahoo hoggaansan ii imaada. intaas bisa kitaabkaba ku qoranba. inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin. waxa weeye qoraalada marka la dirayo inta gaaban ee maqsuudkii iyo muraadkiina laga fahmayo ayaa fiican oo khayru lkalaami maa qalla wadalla. marka hadal yar oo kooban ayuu nebi sulaymaan usoo diro magaca alloo ku bilaabay. kabacdina wuxuu yihi warkii o dhan wuxuu kusoo koobay anlaa taclu calaya, inaadnan iskala kay weynaan, iyo wa'tuunii muslimiina idinkoo muslimiina ii imaadoo soo bax. gabadhii marka hadalkii way akrisay. markii ay u yeerto hadalkii ku dul akrisay, qaalad waxay tiri gabadhii balqiisaheed yaa ayuha almala-u, war jamaacadanay iyo raggiinan madaxda ahow, aftuunii ii jawaaba fii amri arrinkayga dhexdiisa ii jawaabo ila taliya.
ila taliya wey ashiru calay ila taliya hadda arrinta waa aragtaan risaalana soo gaartay waxa weeye waa digniin waa aragtaan ushuu faraha ka baxday maa kuntu ma aanan ahayn horay umaana ahayn qaadicatan mid goysa amran arrin xataa tashhaduuni ilaa aada goobjoog ii noqotaan aniga waxaad igu taqaaneen inaana go-aan iska gaari jirin ilaa aada goobjoog ka tihiin arrintaas marka haddana waa sidii hawl culus ha timide digniin boqor ka timid ayaana soo gaartae bal taliya haye hala kala qaato qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu anagu uluu quwatin awood kuwa u saaxiibaan nahay horta ciidamo iyo tababar iyo military rag hayaan nahay wa uluu ba'sin dagaal kuwa u saaxiibana waa nahay kaasoo shadiidin darano dad ragga dagaalka ku darana waa nahay xagga dagaalkana dad lagu yaqaana nahay xaggii awoodiina waa haysanaa dagaalkana waa naqaanaa ciidan iyo saanad iyo hub iyo hantina waa haysanaa uluu quwatin awood kuwa u saaxiiba wey waa uluu ba'sin dagaal iyo shido xarbad kuwa u saaxiibaha nahay shadiidin daran marka ciidanna waa haysanaa iyo hub iyo dhaqaale dagaalkiina waa naqaanaa inagu intaas waa arrinkeena wal amru laakiin taladu ilayki adiga ayay ku ahaato arrintu adigay kuu taallaa wal amru ilayki arrintu adigay kuu taallaa ee fandurii eegoo fiiri maadaa ta'muriina waxa aad faraysidoo yani waxaad go-aansanaysid annagu waa kula talinay xaggeena walwal ha ka qabin waxa weeye waxaadna na fartid ayaan adeecaynaaye adigu ka fiirsan marka haddaadna dagaal gelinaysid haddaad fikir kale go-aaminaysid arrintu waa xaggaaga marka fandurii maadaa ta'muriin aduu fiiri marka waxaad faraysid oo dadka aada amraysid qaalad waxay tiri marka gabadhiyaa ka xikmad badnaatay qaalad gabadhi waxay tiri balqiis ina almuluuka boqoradu idaa dakhaluu hadday galaan qaryatan waddan haddii ay soo galaan afsaduuha waa fasahadiyaan nimanka boqorada ahi hadday waddan galaan waa fasahadiyaanoo waa qaraabiyaan waa baabi'iyaan dekan ay ka dhigan wajacaluu acizata ahlihaa magaaladaas dadkeeda kuwa ugu sharafta badan oo madaxdiiyana waxay ka dhigaan adillatan kuwa dulaysanoo maxaabiis haddana haddii la rabo la xiro la garaaco la jirdilo la adoonsado waxay rabaan ay ku samay karaanay tiri marba haddii dagaal la isku qabto waa la isbahdili karaa wajacaluu waxay ka dhigaan acizata ahlihaa magaaladaas dadkeeda ahelkeeda kuwa sharafta leh adillatan kuwa dulaysan wakadalika sidaas ayayna yafcaluuna sameeyaan oo waxa weeye ay samaynayaan dheh wakadalika sidaasayna yafcaluuna samaynayaan kuwa kitaabka noo soo diray boqorada horta sida guud saasay u dhaqmaan marka kuwan hadda boqoradan kitaabka noo soo diro oo kitaabkana soo gaaray sidaasay samaynayaan inay na qaraabiyaan oo na baabi'iyaan na adoonsadaan oo maxaabiis naga dhigan wakadalika sidaasayna yafcaluuna samaynayaan kitaabkan kuwa noo soo diray haddaba arrinta anigu tale waxaan soo jeedinaya waa tan wa inii anigu mursilatun waxaan dirayaa mid diraysa ayaan ahay ilayhim ayaga bihadiyatin hadiyad ayaan u dirayaa hadiyad hanti fara badan oo hadiyad ah ayaan u dirayaa fa naadiratun mid fiirinaysaana ahoo waan fiirinayaa bima waxa yarjicu lmursaluuna kuwa la diray ay la soo laabtaan oo waxa weeye ninkan fariintan soo diray ama waa nebi ama waa boqor hadduu boqor yahay hadiyadiisu iska aqbali doonaaho waa nin adduunyo doona waana ka adkaa doonaa marka jawaabtaas waa meel haddii uu nebi yahayna hadiyad iyo xoolo midna ma rabee dan kaluu leeyahay inaan adeecnaana nagu waajiba maxaa yeele wuu naga adkaanayaa fa naadiratun waan fiirinayaa bima waxa yarjicu lmursaluuna kuwa la diray ee anigu aan diray ay la soo laabtaan oo ah inuu hadiyadii aqbalo iyo inuusa aqbalin markaas ayay hadiyad fara badan oo wax alla og yahay ayay dirtaa la yidhaahdaa markii hadiyadii ay dirtay nebi sulaymaana hadiyadii u tagtay nebi sulaymaan hadiyadii markay gaartay waa kan falamaa jaa markii uu gaaray hadiyadii ninkii waday markuu gaaray sulaymaana nebi sulaymaan markuu gaaray ninkii hadiyadda siday markuu nebi sulaymaan u tegay qaala wuxuu yidhi nebi sulaymaan atumidduunanii ma waxaad ii kordhinaysaan
bimaalin hanti miyaa ii kordhinaysaan aniga miyaa maal igu taakulaynaysaan oo hadiyadan iyo waxaan faraha badan ma waxbaad iiga dhigaysaan atumidunani miyaad ii kordhinaysaan oo maal igu taakulaynaysaan bimaalin hanti famaa aataaniya allahu ilaahay waxa uu isiiyey aniga famaa aataani waxa uu isiiyey allahu ilaahay waxa uu isiiyey ee nebinimadka iyo boqortooyada iyo hantida ayaa khayrun ka fiican mimaa aataakum waxa idinka uu idin siiyeyoo adduunyo ah waxa rabbi igu manaystoo nebinimad boqortooyo hanti waxaasaa kun jeer ka khayr badan oo ka fiican waxa idinka la idin siiyo boqortooyadaas yaroo adduunyada kali ah bal antum idinku bihadiyatikum hadiyadiina ayaa tafraxuna ku faraxdan bihadiyatikum tafraxun hadiyadiina ku faraxdan adinkaa ahlu adduunyaaho ujeedkiinu uu adduunyo jamcinteedii oo ku faanaya ama anigu rasuul ilaahi ahay daaciya ahay nabigii ilaahay uu soo dira ahoo shirkiga iyo gaalnimadka dadka kala dagaalamayay mana maqli karo qorax la caabudo iyo ilaahay keyrkiisoo loo sujuudo marka waxa weeye arrintaas hayga sugnina maxaa samaynaysaa dadkii ay soo dirta gabadhii ula hadla wuxuu yidhi irjic laabo ilayhim ayaga u laabo dadka kusoo dirsadoo boqoradii iyo ciidankeeda u laabo falana'tiyannahum waan u imaan doonaa oo ula imaan doonaa bijunuudin ciidamo ayaan ula imaan doonaa ayaga ciidamadaasoo laa qibala awood lahum dadkaas aysan ugu sugnaanin bihaa ciidamadaas inay la dagaalamaan ciidamadaas bihaa biqitaaliha inay ciidamadaas la dagaalamaan ciidamo aysan awood u lahayn ayaan la soo aadi doonaa hadiyad iyo xoolo kama rabno falana'tiyannahum waa ula imaanaynaa bijunuudin ciidamadaasoo laa qibala awood iyo hor istaag lahum balqiisa iyo dadkeeda uusan usugnaanin bihaa biqitaaliha ciidamadaas la dagaalankeeda uusan ugu sugnaanin ciidamo aysan la dagaalami karin aan la soo aadaynaa walanukhrijannahum balqiisa iyo dadkeedana waan saaraynaa minhaa magaaladii ay ku noolaayeen ee saba ayaan ka saaraynaa adillatan ayagoo dulaysan oo maxaabiisaan soo qabanaynaa wahum ayagoo saakiruuna dulaysan haddaysa ayagoo muslimiina hadda noo imaan ayagoo muslimiina haddaysan noo imaan ayagoo dulaysan ayaan magaaladaas ka saari doonaa walanukhrijannahum balqiisa iyo ciidamadeeda iyo dadkeeda madaxda oo dhan waa saari doonaa minhaa magaaladii sabaan ka bixi doonaa adillatan ayagoo dulaysan walxaal hum ayagoo saakiruuna ay dulaysan yihiinoo ay liitaan oo maxaabiis ay yihiin haddayse ayagoo muslimiina noo imaanu yidhi weli qisadii nabiyullahi sulayman waa sii socotaa intaasaan casharkeena ku joojinayna wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu